ugu yaraan 7 qof ayaa geeriyootay waana Soomaali waxaana la soo sheegay in tirintaasi ka badan ay ku dhaawacmeen dagaal mar kale ka qarxay deegaanada Soomaalida ay ku dirarayaan iyagii Oromada Najiib Cabdulle Cabdixiis ayaa warkan ka soo diray magaalada Jigjiga halkan aan ku suganahay waa cusbitaalka guud ee deegaanka Soomaalida ee Referral Hospital waxaana yaala dhaawaca 8 ruux iyo dhimashada 7 ruux oo ku soo waxyeeloobay dagaaladii shalay gabaldhacii ka dhacay deegaanada Tuli Guuleed iyo sidoo kale Baabuli dagaaladaas oo u dhaxeeyay qoomiyadda Oromada iyo Soomaalida waxaana telefishinka caalamiga ah ee Universal aanu waraysi la yeelanay qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada ahaa ee ku soo waxyeeloobay dagaaladii shalay gabaldhacii ka dhacay deegaanadaasi waxayna nooga warbixiyeen xaaladooda caafimaad ee ay dadkaasi ku sugan yihiin ya adu ilaahay ga bixiyay niman meel guus joogay ilaahay ga bixiyay saasay nafteedana ku badbaadeen gacantan ma joogo gaarsi caafimaadkayga maanta ilaahay ma iga fiican waxa joogay 3 qof kuwii kale way baxsadeen marka la eego deegaanka joogteen ma shacab baad isleynayeen mise ciidamo caadi isleynayeen ma ciidamo caadi oo wax isleynay gursumka yimid qayra ooga annagu gudaha intay ka tageen bay calan la yimaadeen maalinkii ka horeysay calankii joojiyay calankii waan ka fujinay sidii markaa duulimaad bay igu yimaadeen maalinka dambe aniga duulimaad gaadmo igu yimaadeen anoo beeraasho magacayga waxa la yiraahdaa Cabdilaahi Aadan Sugaal Cabdilaahi waxaan noo warbixisay dhacdadii meesha ka dhacday iyo dagaalkii qabiilka labada qabiil u dhaxeeyay Oromo iyo Soomaaliya u dhaxeeyay qolada fanooda ay waxa suuqaysay iyo ninkan ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay banka meesha la yiraahdo dacwalay ee xasuuqu ka dhacay 7 nin midku ka yaalaan buu la jiray halka waxa kulaayay qolada Oromiya ay fanooduna taageerayso marka saas ku dhaawacmay lagu keenay meedkuna ku yaala meesha 7 qof meedka buu la socday oo isna dhaawaci kaliya la socday baamiya waas la jiray sagadaas deegaanada ay arintu ka dhacday imika hawsh ka jirto xaalkeedii meesha lagu dagaalamay shalay oo kale waa sidee maanta oo kale maanta qudheeda meeshii uu shalay ka dhacay meel ku dhowbu aad dagaalku uga socdaa jiriile iyo koorile iyo dhulkaas maanta aad uga socdaa meel yar u jirta marka laakiin meeshii shalay toole caalam bay ku taagan weyna taagan yihiin qoladii Oromada xaaladii caafimaadka eegana waxay igu hadhay laagta dheer baa igu dhacday xabadii haddii qofta igu dhacday laagta dheer baan ku dhacday dhabarkiiyo meelahaas ha igu jabay waxaasi mooyee qoftani waa ladnahay adeer dhinaca kale boqolaal ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga oo soo buux dhaafiyay barxadda weyn ee cusbitaalka Referral Hospital ee magaalada Jigjiga oo waa hagaagka wararkaasi oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena soo socda insha Allah